duuba oo waliba u dira maxay ahayd meel kasta iyo ay kastoo dhanba u dira waan ogahay dad baad duubahaya oo inta la ordahaya oo dabadhisnada siyaasadda shaqo ka dhigteen meel kasta geliya inta xurriyadda aad ku haystaan xagga bixmishtariga oo adduunka oo dhan idiga qaylin hayo waxaad xagga siyaasadda ay u noqon weyday inta kali un baa dib naga haysta ikhwaani assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aad baan ugu faraxsanahay dadaalka xurriyadda isku kalsoonida isku tashiga aad xagga bixmishtariga ku samaynaysaan keli waxaan la yaabanahay inta xurriyadda aad ku haystaan xagga bixmishtariga oo adduunka oo dhan idiga qaylin hayo waxaad xagga siyaasadda ay u noqon weyday inta kali un baa dib naga haysta midnimada bixmishtariga iyo dadaalka bixmishtariga iyo xurriyadda bixmishtariga ilaa nin cad iyo nin kale iyo maxay ahayd wax kastoo dhanba qof aad u aabayeelaysaan mala waxaad aaminsan tihiin inaad maskax siyaasadeed go'aan siyaasadeed firfircooni maskax bixmishtari go'aan bixmishtari firfircooni bixmishtari oo cidna aan la tartami karin inaad idinka qabtaan baa idiga dhaadhacsan tii baana waxay dheeraysaa inaad meel kasta ku guulaystaan insha allah biidni illaahi albaari ilaahayna waad isku xirteen oo dad diin leh waxaa weeyaan meel bay gaaraan keli waxaan leeyahay war firfircoonidan siyaasadda iyo xurriyaddan siyaasadda isku kalsoonidan iyo isku tashiga intaa maxay siyaasadda dhankeeda u samayn waayeen waad fahamteen sooma xagga siyaasadda ninka soomaaliga waa nin caddaan ahoo galbeed daba ordi iyo nin carab ahoo meelaha imaaraadka iyo maxayd khaliijka jooga daba ordi iyo nin kale oo maxay ahayd kenyaan bahalkii maxaa la dhahaa dadka kale oo qaaradda nala joogta daba ordiyo etoobiyaan daba ordiyo waxaasay marka war horta xurriyadda intaa ilaahay u baryo faataxa u mara soomaalida inay kalsooni ay dhankaa ka helaan taa iyadana waxaa weeyaan meeshaasaan kaga tegaya waan ogahay siyaasadda faarax wuxuu siyaasadda oga hadlaa baa la yidhi siyaasadda dhaqanka iyo nolosha deganaashada xasiloonida maxay ahayd protectionka investmentkiina ayaa siyaasad ku jirta haddaad siyaasadda lagaaga cabsanin ood ka muuqan weydo wax kaloo lagaaga cabsan male hilib bisil baad noqonaysa hantidaadana waa la xalaalaysanaya oo maxay ahayd meesha la doona ayaa lagu saqajaamaya soo isaga u sheegayna waddankan wax badan baan aragteen anigoo ka hadlaya waddankan annagaa leh duuba oo waliba u dira maxay ahayd meel kasta iyo ay kastoo dhanba u dira waan ogahay dad baad duubahaya oo inta la ordahaya oo dabadhisnada siyaasadda shaqo ka dhigteen meel kasta geliya waddankan annagaa leh nin naga leh ma leh walaa kukiyaa naga leheen walaa jalwaan naga leheen walaa baliya baa naga leheen walaa kalinjin baa naga leheen walaa cid kaale ma jirto inta xaq ay u leeyihiin xaqoodii baad adigana leedahay martina kuma tihid ninka isku kaataagana sida aan iskaga celinna waan naqaana waan iska celinayna midda kale dowladda garab ha loo noqdo dowladda maanta jirta waxyaabaha loola dagaalamahayo loo fiirsan hayo loogu duuli hayo waxaa weeyaan soomaali bayaan cad ayan lahayn siiyeen annaga cadkiisa leh mar kastoo waddankan uu godgalayna nin soomaali baa badbaadiyey 82 markii inqilaabka la isku dayey wiil soomaali baa badbaadiyey 2007 markii la burburi lahayd oo maaragtay xagga oo post election violence ay dhacday Major General Hussein Ali ayaa badbaadiyey maantana ragga badbaadiyey waa soomaali ad maqlaysaan Soomaa marka horta ha ogaadaan nin alla ninka annaga nagu soo aado ragga raganimada iyo geesinimada ay calo adeegaasi isku kalsoonida qab yaan nahay waddankanna waan badbaadinana meel kale oo leenahay ma jirto jaahilka markuu maqla Soomaaliya moodi Soomaaliga inta joogana Soomaaliya ka yimid Soomaaliga inta jooga asal magaalada Nairobi Soomaali baa bilowday gaarsiyaga iskale wajeer iyaga iskale mandheera iyaga iskale siolow iyagii walaalahood maxay ahayd ay ku shitigsleeyihiin baa isla marsabid annaga isla leh mooyaala annaga leh kulli annaga leh annagii kuwan la dhashay oo aad garanaysaan oo Oromada ah waddankan degan marka intaas taasaan kaga baxayaa bixmistarigii baa imaaday socda hantidiinana waa la dhowrayaa waa la ilaalinayaa cid aad ka baqdaan ayay jirin shaqaysta aad iyo aad marka ayaan taa idigu boorinayaa wanaagana waxaa weeyaan hadda wax hadal baan haynay bixmistari baa la hayay salaadii baa la aqimay waan wada oranay waan soo tukanay ciddii ilaahay ku xiran ilaahayga on bari haddaad wax bari
ilaahayga aan bari faarax macallin ninka mucaarad sanamiyaa jira waad garanaysaan siyaasadda mucaarad baan ku soo galay mucaarad baan ku ahaa madaxweynahan baan mucaarad ku ahaa doorashada aan soo dhaafnay haddana asbaabta aad garanaysaan baan garab oogu ahay berina meesha danta soomaalida jirta ayaan marayaa kii ka gudana karbaash baan kala daalayaa waad maqasheen sooma meelahaas ay tahay Soomaaliya lagu hadlo duduubaysaan war duduuba meesha doontaan bageeya muxuu ka dan war yaa waxaan idin sheegayaa aan kaga baxa meesha iyada ilaahay un ka cabsada in kooda ka cabstaan ay jirin nin kastana xaq buu leeyahay waxaan badboodaya war ordayna ma aha wax kale waa siyaasad waa inqilaab la isku dayay oo fashilmay waan ogaan doontaan hadda ka dambe ogaan doontaan marka haddaad dhaanta aragtaan ha iskaga dhaxdhicina waad garteen Soomaa nimanka reer macallin waxa la reer macallin yaa day dhaanta arkaan oo iska dhaxgalayaan iyagoo aan marka Soomaaliya ciyaar kastoo aragtaan ku boodina hadda ordina horta ogaada nuxurkeeda dhuuxa xisaabtama siyaasiyiintiina ka dambeeya oo dhageysta hebel muxuu sheegi doonaa dhaha laakiin koreyga yarba hadduu ordo oo madaxweyne Soomaaliya caayo oo kii kale Djibouti caayo oo inta madaxda Soomaalidu caayo mataayada waxa weeyaan waa meel ay gaari malaha waa dulinimo meesha ugu dambeysay wadankan waxa soo maray dad madaxweynayaal oo sakhraan oo wax ilaahay inta u aabayeeleen aanan jirin hal maalig ma aragteen reerkooda caynayaan ma aragteen ma yadaha oo bacmistari oo hantida wadanka oo dhanba jugsiyeen Soomaa dadkiina ka dambeeya madaxda dad ka dambeeyeen weydaan khasaaradinku ba qabtaan ninka madaxda wixiisa uu qabsan wixii ka dambeeyana ahlan wasaal ummadan kale oo Soomaalidana meel ay joogto dhanba u duceeya ilaahay inuu sharaftooda soo celiyo waan rabnaa sharaftooda inay soo noqoto midnimadooda ay weligeed saa ahaato ka gees ilaa ka geesna wax Soomaalinimo ka hooseeyo oo nin yahow inaan islaamnimo iyo Soomaalinimo anfacaysa iyo Kenyanimada aad heedeen lankiyaan baatino bari hadda wadankan lagu soo duulo waanu difaacanayna wadanka anagaas kale marka intaas ay sheegay kaga baxaya barnaamijyadigan aniguna dib baa hadii haysta oo si aan u xisaabtamaan garan lahay maxaa meel kale oo kale waa ligu yeeraa guri baan ka qaataa guri afraad baan maraya lacagta meel aan ka keeni doona ilaahay baa og laakiin kuwana mid baan ka qaadan doonaa insha Allah warwaadi maqasheen Soomaa waanu dadaali doonaa koran gaar anaga xagga raama gudaa jooga soo gadgado si baan sameyn doonaa idinka geel malid anaga geel baan leenahay marka waka idinka guriyaad leedihiin anaga meelahaas geel raama gudaa markood soo gadgadi kana guri baan ka maartay ka qaadanaya insha Allah